السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ahay soo jeediyay Xudayfa Ciidid Bile dhammaan ardayda ku jirta channelkan waan salaamayaa salaanka bacdi ku soo dhawaada mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba kanaalkan ama channelkan casharada caafimaadka maanta casharkan dhigan doona waa lesson 1 medical terminology waa ereyadii caafimaadka haddaad ereyada caafimaadka fahantina waxyaalo badan baad caafimaadka ka fahmi doontaa dhammaan ereyadan haddaba meeshaan ku wada qaadan doono waa ereyo aad u khuseeya dadka markaa caafimaadka ku dhex jira ha ahaadan dhakhaatiirta ha ahaadan nursingka iyo kuwa deedu health professionalska kale dhammaan shaqaalaha caafimaadka kale waa luuqadaas ayuu ku wada xidhiidhayaan markaa haddaba introduction horudhac medical terminology-ga waxaa lagu qeexaa waa luuqad loo isticmaalo to precisely in si sax ah describe loogu qeexo to human body bini'aadanka jirka bini'aadanka including ay ku guda jirto it is component qaybihiisa habkiisa iyo conditionska xaaladaha kuwaasoo affecting saameyn kara ha ahaadan xaaladaas xanuun ahaadan qalliimaha ahaadan waxyaalahaasoo dhanba waa luuqad ay ku wada hadlayaan markaa kuwan shaqaalaha caafimaadku iyo dhakhaatiirtu waa luuqad ay ku wada hadlayaan iskuna fahmayaan kuwaasoo luuqadaas ku saabsan qofka bini'aadanka jirkiisa iyo qofkan bukaanka ay markaa u shaqaynayaan xaaladiisa caafimaad waa inaad fahantaa saddexdaa waxna waxay noqon karaan waa prefix iyo root iyo suffix haddaba prefixku isagu waa haddaan si guud haddaba intaa idinku wada sheego si af Soomaali ahaana prefixku isagu waa horgale waxaanu ka hormaraa root-ka saxda erey root ah oo markaa micnihiisa ku fadhiyo micnihii ereygu ku fadhiyo ayaa markaa isaga markaa laga hormariyaa prefix-ka root-ka ku yimi root-ku isagu waa central part waa qaybta dhexe adigu word-ka way waa root-ka waxa weey hadaba ereyga dhexe kaasoo ereyga micnihiisii uu ku wada fadhiyo micnihii ereygu ku wada fadhiyo prefix hadaba wuxuu yiri prefix wuxuu yiri waa a place of the beginning waxa la dhigaabo ku leeyahay place-kiisa ama goobtiisa waxa weey waa xagga hore of a word ereyga taasoo to modify bedelaysa ama change ku sameynaysa ama change ku sameynaysa it is meaning macnaheedu change ku sameynaysa waxa noo soo dhigay root-ka hadaba root-ku aniga hore soo sheegnay waa central part of a word waxa weey waa ereyga wuxuu dhacaa belayskiisa ama goobtiisa waxay tahay waa dhexda ayuu dhacaa suffix-kuna hadaba waa the ending part waa qaybta dambe of a word ereyga taasoo modifies bedesha the meaning macnaha of the word ereyga bedesha ereyada waxaa ka mid ah ereyga ugu horeeya oo la dhaho plateau waxa weey waa blade waa roof of mouth waa saqafka hore ama inta hore afka ayaa la yiraahdaa blade ama plateau oo ereyga root-kiisa paleo waxa weey waa ereyga root-ka micnihiisu yahay old oo markaa wax weyn laga hadlayo pancreatus isaguna waxa weey waa ereyga root-ka micnihiisu yahay pancreas ama waxa Soomaaliga lagu yiraahdo ganaca para erey weey prefix weey isagu kaasoo la yiraahdo near isagu waa near waa dhinac parasito isagu waa erey ruuda ereyga root-kana waxa la yiraahdaa parasite oo dulin partum waa erey isaguna suffix waa erey suffix weeye micnihiisuna yahay part oo dhalasha patella waa erey ruuda ereyga root-kana micnihiisu patella oo ah jilbaha ama ruuga waxa uu taqaano pato waa erey ruuda disease-na waa micnihiisii waa cudur ama xanuun bacteria waxa weeye waa erey ruuda waana just waa laabta bedo waa erey ruuda isaguna waa child oo cunuga belfo isaguna waa erey ruuda oo la yiraahdo pelvis oo Hebrew uu yahay taas oo misigta ah af Soomaali ahaan pepsia waa erey suffix waxaana la yiraahdaa digestion oo ah markaa dheefshiidkiisa berry waa erey prefix waxaana la yiraahdaa surrounding wax ku hareeraysan faco waa erey ruuda waxaan la lens of eye ama lens waxa la yiraahdaa lenska indhuhu leeyihiin ayaa la yiraahdaa fago waa erey isaguna ruuda waxaana loo yaqaanaa micnihiisa eat oo cunisa ama swallow ama liqitaana farmako waa drug way wadaaweyn waa isaguna waa erey ruuda farmako waa erey ruuda
وانا معنيسو نحوي ودراج وداوين. فارنشو وإيري رودة سجونا أو تروت أو دلقدا. فاسو أو يسجون وإيري رودة وانا speech أو هذا الكا معنيسو. فليبو وإيري رودة معنيسو نوافين. فوبو وإيري رودة معنيسو نوافير أو عبسية. فونو وإيري رودة ومعنيسو هي voice أما sound عض. فيلجس وإيري سافجسا معنيسو هي protection. فايتو وإيري رودة معنيسو هي plant أو جيدا مديرة. بيلو وإيري رودة ومعنيسو هي hair. ألتشيا وإيري سافجسا ومعنيسو هي pain. دايس أما دايس وإيري سونا بريفجسا معنيسو هي bad أو حنا. ectomy وإيري سافجسا معنيسو هي surgical removal وميل قلايو كله أقلين الجسمي. hyper وإيري بريفجسا معنيسو هي excessive واحد دافع. itis وإيري سافجسا معنيسو هي inflammation أو عابقة. osis وإيري سافجسا معنيسو هي abnormal condition. رهاتشيا وإيري سافجسا معنيسو هي bleeding. رهيا وإيري سافجسا معنيسو هي flow أو wax qulqulayo kale. melano وإيري رودة معنيسو هي black أو مدوة. necrosis وإيري سافجسا وانا tissue death وأنوجدي تشيدي إني دنتان أما نضياش إني دنتان. auto وإيري رودة وانا حلو يقانا ear أو دكتة. رهينو وإيري رودة معنيسو هي nose أو سنكا. أولوتشي وإيري سافجسا معنيسو هي sturdy أو براشو. arterio وإيري رودة معنيسو هي artery. أولوتشيستي وإيري سافجسا معنيسو هي specialist أم واحد تخصص قارة أو تخصص خاص وخلي. نيو وإيري بريفجسا معنيسو هي new أو واحد عصبة. فير وإيري رودة معنيسو هي فيروس. لسنكي كوباد halkaasuu ku dhamaaday endi lesson 1 kii halkaasuu ku dhamaaday. lessonka labaad ayaan isugu imaan doonaa. mar walba waxaan kula talinayaa inaad subscribe-tana saartaan gambaleelka yarna aad furataan. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.